maanta oo ay taariikhdu tahay 4 bishii shanaad 2023 waxaa noo suuro gashay inaan xilka u kala wareejinno gaashaanle sare Axmed Cali Aftooje oo ahaa taliyihii hore ee laanta ilaalinta canshuuraha iyo taliyaha cusub gaashaanle dhexe Muxudiin Axmed labadaas oo leesku bedelay ayaan maanta xilka halkan ugu kala wareejinay. waxaa kaloo intaa dheer inaan labadii maalmood la soo dhaafay u kala wareejinay xilalka taliyaha madaxa iskoontarada canshuuraha ee saldhigga dekadda iyo ku-xigeenkiisii cusbaa iyo taliyihii hore ee iskoontarada iyo ku-xigeenkiisii labadaasoon maalin dhoweed u kala wareejinnay. waxaa kaloon u kala wareejinnay oo ayaguna isbeddelkaasu saameeyey taliyaha iskoontarada oo saldhigga ayraboorka iyo taliye cusbaay oo loo magacaabo. arrintaas waxay muxuu ahay u tahay hordhac isbeddelka iyo muxuu ahay xilliga lagu jiro ee uu taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed ku dardargelinayo shaqada ciidanka booliiska Soomaaliyeed taasoo ka soo bilaabatay qaybta guud iyo hoggaanka baarista dembiyada iyo dhammaan muxuu ahaa ninka la yiraahdo hadda ilaalinta canshuuraha ay timid iyo inta kaloo fadhiyada hor dhiman oo ayaguna shaqo maalmeedku ku socoto. runtii waxaan dhihi karaa mar kasta xilku waa meerto waa sax qof kasta oo muxuu ahay isagoo shaqeeyay ayaa la bedelayaa waana shay standard oo caadi ah. marka waxaan rajaynaa taliyaha cusub ee halkan laanta ilaalinta canshuuraha loo magacaabay runtii waajibaad adaga hor yaalla dalkan iyo dadkan booliiska ilaalinta canshuuruhu canshuurta ayuu ilaaliyaa isla markaasna markii la soo qaado marka laga soo qaadayo muwaadinka wuu ilaaliyaa si saxa ma looga qaaday markii la soo xereeyo na bangiga lagu soo xereeyey ayuu haddana mar labaad ku ilaaliyaa oo ku xafidaa. sidaa daraaddeed waxaan rajaynaa inuu waajibkaas si xaqa oo alla ka cabsiya oo muxuu ahay maadaama uu yahay nin aqoon-yahana inuu ka soo bixi doono. taliyo kale hore isagana waa dadaashay waana ku sagootinaynaa. wabilaahi tawfiiq.